maaweelo iyo maadays ayaa loo arkaa wixii shalay ka dhacay garoonka aadan cadde ee ahayd in Cali Yare Cali oo ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir laga hor istaaga inuu u duulo degmada Guriceel ee gobolka Galguduud. RTN TV ayaa si hoose ula xiriirtay maamulka garoonka aadan cadde waxa ayna naga codsadeen inaanan sheegin magacyadooda. waxay noo sheegeen inaysan jirin diyaarad qaas ah uu sii xajistay ama u kireysnayd Cali Yare sida uu ugu duulo Guriceel. waxayna sheegeen inaanay jirin in Cali Yare laga celiyay garoonka taas oo uu isaga sheegtay. dhinaca kale mar aan la xiriirnay dad ku sugan Guriceel ayaa sheegay inaysan jirin wax abaabul iyo diyaar garow iyo dareen soo dhaweyn ah oo la xiriirta imaanshiyaha gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Cali Yare Cali. dad badan ayaa isweydiinaya waxa ku kalifay Cali Yare inuu ishafro sumcaddana iska dilo. dadka ka hadla ama falanqeeya siyaasadda ayaa sheegaya sababta inay tahay laba midkood. midda koowaad in la rabo in lagu daboolo arrintii sharci darrada ahayd ee dabcan lagu sameeyey dhowaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muudey, taasoo fila Soomaaliya ku noqotay tabarjab kadib markii xafiiska Rooble iyo wasiirka amniga ay soo farageliyeen ishor istaagga lagu sameeyey gudoomiye Muudey. midda labaad ee Cali Yare ku kaliftay inuu ishafro ayaa la sheegay isagoo ka quustay inuu ku soo bixi karo kursiga uu hadda ku fadhiyo xildhibaan Mahad Maxamed Salaad, iyadoo reerka uu ka dhashay si cad ugu sheegin inaysan Mahad Salaad ku bedeli karin Cali Yare oo ah nin aad ugu dhow madaxweynaha hadda mudxuleedkiisa uu dhammaaday Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. marka loo fiiriyo saamaynta galaangalka waayo-aragnimada iyo waayo-joogga Mahad Salaad waxay ka dhigan tahay quus hordhaca iyo qalbi jab durba soo gaaray gudoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir. Cali ayaa bilowga sanadkan iyo kii ka horreeyeyba ku jiray olole u muuqda in uu ku muujinayo inuu yahay bedelaha dhabta ah Mahad Maxamed Salaad oo wax ku siman 8 ku fadhiyay kursiga hadda ee waqtigiisu uu dhammaaday ee baarlamaankii 10aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. dadku inta badan waxay isweydiinayaan damaca iyo doonista Cali Yare waxa ay salka ku hayso fariimaha qaldan ee la baahiyay Cali ujeedada uu ka leeyahay. laakiin dadka xoogaalka ah ee siyaasadda xeeriya ayaa qaba Cali inuu dareemayo isku dhaxyaac buuxa marka laga hadlayo quusta kursiga iyo qalbi jabka uu kala kulmay xagga qoorqoor. dhowaan Mahad Maxamed Salaad markii uu socdaal ku tagay magaalada Dhuusamareeb soo dhaweyntiisa oo aad u camirneed waxa uu dadka u sheegay in la muujiyo kursigan inuu yahay mid wada furan, dhammaan nin kasta oo uu calafkiisa yahayna uu heli doono. ma jirto cid gaar ah oo loo xiray, ma jirto cid gaar ah oo dabcan lagu sasabayo, ma jirto cid gaar ah oo la bartilmaameysanayo ayuu dabcan ka yiri madasha soo dhaweyntiisa. Mahad Maxamed Salaad ayaana u sheegay kursigani inuu yahay mid furan, gacmo furanna ay tahay in lagu soo dhaweeyo dhammaan shakhsiyaadka ka soo jeeda beesha ee hadda xusulduub ugu jira hanashada kursigani. Cali Yare lama oga hadda calaacalkiisa waxa ku qasbaya. dad badan ayaase u arka guul uu hadda dareemayo in kursigiisa uu ka gaarayo Mahad Maxamed Salaad, isagana ay ku tahay dabarjab iyo qaadanwaa iyo quus wada socda isagoo durba dareemaya waxa ka dhacaya Dhuusamareeb, isku dhawaanshiyaha Mahad iyo sidoo kale qoorqoor dadaalada Galmudug ee ku aadan Mahad markii Guriceel kooxda Ahlu Sunna ay qabsatay. daawade maxaa kuu muuqanaya? dareenkaagu muxuu kuu sheegayaa? Cali fariintiisu maxay kula tahay?